نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألق خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعاون من أجل حياة عامرة خيرا ورقيا. halkan hadda hadda xaas ka soo boodo xaas sameeyay mid kale intina ya dabaal yaqaano oo wabi ku dhex noolaan jiro oo dabaalan jiro wiilkii kuma noolaa meesha ay xamil ay hadda baashar si fiican ma noqon laakiin ay gaar wadabta hooyada ma taqaan hooyada haa waa marka intii saa loo galo kadibna lugta halkan inta ka galo aniga halkan inta ka galo ayaan geeska kale uga bixi karaa aniga hoos ka soo Assalaamu alaykum waa qaybta saddexaad ee barnaamijkeena liibaanta guurka maanta waxa ka hadli doonaa waxay tahay waa shukaansiga ما dad waaweyn baan shukaansi way ku jirtay haasawan ka hadlayna ama isbarashada laakiin anaga jiilkeena asaamu la mushaaxata fi istilaah yani magacyadu waxba dhibaato ma leh ujeedadu labadan qof say u wada hadli karaan reer u dhisi karaan ama shukaansi dhe ama haasaawada ama xudxudashada si fiican anaga jiilkeena erayga hadda dheysma maqlay marka shukaansiga ku dhaafeena okay marka su'aashu waxay tahay Sheekh Abu Talha daadaan kuugu bilaabo sidee loo baahan yahay in labada qof isqaba inay isguursan inay isku shukaansadaan sidee ayaa isku shukaansadaan oo diinta islaamka ayna amraysaa والله horta shukaansigu asal waa ana waxaan qabaa labada qof ee horta isguursanaysa ittifaaqiyad iyo wada hadal iyo heshiis iyo horta shukaansiga laga hadlay maxaan isku darsanaa ayuuta ma taqaan adigu ayuuta waxa weeyaan haweenka aad u yaqaana shalongana waa la yiraahdaa ayuutana waa la yiraahdaa xagbadna waa la yiraahdaa waxba la isku darsadaa labada qof markay isku kaansanayaan macnaheedu waxay ka dhigan tahay aniga keligay waan isku filaan waayay adigana keliga waa isku filaan weyday aniga ilmaan u baahnahay keliga ilmo waan dhali waayay adiguna ilmo waad dhali weyday sakan iyo xasilooni iyo raaxana waan dareemi laahay adigana sidoo kale adiga maxaan isku darsanaa adiga maxaan naga dhaxayn kara adiga maxaan isla lahaan karnaa oo naga dhaxeeya horta qodobka way qodobka laga wada hadlayo runtii waana qodob asaasi ah aragtidayda reer baa liibaanay oo guuleystay qodobkaas baa meel isla dhigay reer baa fashilmay waxay u badan tahay marka hore la wada hadlayo inaan daacad iyo xaqiiqo lagu wada hadlin qodobada ugu muhiimsan in laga wada hadlo u baahan waxa weeyaan inay cadaato labadan qof inay daacad isu yihiin inay run isu sheegayaan inayna inaba wax khiyaano ah labadooda midna inay ku jiraan qof walba qof kale laabtiisa waxa ku jira iyo dareenkiisa gudaha ku jira inuu banaanka soo dhigayo qodobada ugu muhiimsan waa qodobada ay wada hadal si fiican wax muqdo salaad sheekhana bismillaahi aniga waxay ila tahay shukaansi wax la yiraahdo ma jiro awo wax la yiraahdana waa book waxay ila tahay اعتزل ذكر الغواني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل بمشى تهلا صح وحني يقف والبمركو هلايو إنه بطل العالم يهي فارس الأحلام إنه يهي إنه يعني معركة عن ترى إنه في المعركة ويسكر دقيقة مركا حقيقة النبتة وحاول يقفك أدونيس ربطين جورستو مركو هرت المامي هي صفات كيس إسكاء كدبنا إله لا تشرب kadibna dadka mustashaarinta iyadana yaqaan annaka yaqaan labadina dabeecadiisu yaqaanana la tasho kadib gabadha saad u soo socota waxa tiraahdaa walaal inaan iskuursanaan rabnaa diyaar mata sax mustaqbal guurban ka rabaadhe kadibna iyaduna soo tashato sidaasi hal loo isku guursado sheekhana caafimaad qabo ka hadlaya adduun caafimaad qabay oo sheekhu ka hadlaya zamankani zamanul khiyaana zaman khiyaanadu iyo sirtu ay badan tahay bajir زبنك خيانة هدي وبطنا خيانة سيد الوزولي له إلا وزولية صح شيخ جزاه الله خيرا ونكون احترامنا لكن مسألة لقى مارمان كمان توحوي شاطي قروح بدن بانقابي مركه هران إلي ولا اللي وهو قرسنا يا لكن مركه أنقرق قالي شاطي إنتان دقيبان شاطي كراح لي ولذلك اتفاقيات حريرك وحانقبا إنه الشيخ وكسو بيرو فكر كأي أركتداس كنا للصوت كانوا كوانيو laba qof isku kaansanaysa labada qof maanta inay rabaan inay dhistaan inay wax badan ay ka wada hadlaan inay daruuri tahay marka sheekh hadalka inaad ku xilisaan qaba hadda sidaas socota sidaasana loo badan yahay laakiin dadku sida ay u badan yihiin mar walba hadii la sameeyo waa un lugooyo waa in tuutic aktar man bil ardi yudilluka
xaqiiqada dhabta waxaa weeye dadka mucdamkooda iyo jamaahiirta waxba lagu xukumo annaga waxaan rabnaa ummad dhalinyarada inaan u celinno mabaadi'da iyo waxyaabaha aasaasiyaadka wiil anigu aan dhalay baa waxaan ku idhi hooyada anigoon arkin baan guursadaan ku idhi markaasuu masar buu ku koray intuu aad u yaabay ama kaagay buu wuxuu yidhi laa hada ma yajuus sharcan ma banaanaba ma yajuus sharcan marka gabadha markii lagu yiraahdo gabadha waa gabadh wanaagsan waa gabadh akhlaaq leh waa gabadh diin leh oo dabcan qoyskeedii iyo meeshay ka soo jeeday iyo dunteedana aad garanayso sax waad ku dhiiran kartaa khayrul birri caajiluhu sheekh wiilka yarka ah dad waxaa jira iyaga oo salaad u socdo gabdhaha is siiyay ajiib dad waxaa jira gabadhida qaan gaadhay waan ku guriyay ma aqbashay waan aqbalay oo liibaanay oo jabaabira soo saaray oo maqaawiir soo saaray marka waxaa weeye waxyaabahan man tacallaqa bishayin wukila ilayhi haddii maantoo dhan see tahay sida kale waa iska kaa dhaxarkay filin la jilo filimka iyadoo laga daayay oo sheekh fil ahaan waan ku waafaqsanahay waxa iska aan waxba naaf lahayn laakiin wiilka yare uu sheegay Allah u daayay asaga u dhalay amiin wiilka yare uu dhalay sheekh jazaa Allah u daayay waana qaana runtii diin buu soo akhristay nabiga sallallahu alayhi wasallam ma iska soo fiirisay gabadhaas saxaabi buu ku yiri reer ansaareed way indha yar yihiin macnaheedu waxay ka bilaabanaysaa maxaa la yiraahdaa aqoonta iyo macrifada mesela gabadha eeg ilaa aad ka arkayso wax kugu yeedhaya iyada guurkeeda xataa culimadu ay gaarsiiyeen oo dhaxan waad uga gaban kartaayo mar iyadoo maxaa la yiraahdaa gacmaheeda yar feedata iyo iyadoo si u kufta iyo waxa soo dhan sheekhu arrimaha uu sheegay waa sax lacalla inuu mulaaxadaynayo Saciid bin Musayyib iyo geyrkii laakiin macnaheedu waxa weeye arday kamida ardaydii sheekha oo aad u yaqaanay sheekha oo wax badan yaqaanay oo maanta nin caalima ninkii hoos fadhiyo oo inta yaqaan oo reerkiisa yaqaan yani ana atajarra waan ku dhiiran karaa inaan dhahno gabadhaada isii laakiin anigu waxaan ku celcelinayaa waqtigan maanta la joogo inaan u baahannahay in wax badan marka hore meel isla dhigo anigu waxaan u malaynayaa qolyahan anigu aan si u noolyihiin maskaxda ay ka buuxdo Soomaalidu ay u arkaan badownimada ay reer miyiga inay quman yihiin bay la tahay laana hadda nusuusta eegto iyo siday saxaabada iyo taabiciinta ay u dhaqnaayeen iyo kuwana isle مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل وها gabadhii waad garanaysaan caanaha biyaha ku dareysay oo soo arkay waracnimadeeda markuu arkay ayuu wiilashiisa u soo bandhigay oo uu yiri hadda waan da'baan noqday anigu haddaan guur aan ka bixi karo waan guursan lahayn kiinee u baahan gabadh u baahan ha marka gabadhii guri bay ku jirtay habeenimay ahayd dulmaad ay ku dhex jirtay lama arkin kalmadeedu maqlay marka kalmadeedu bas la maqlay marka sifaadka dhalinyaro sifaadka targetka saara tilmaamaha targetka saara waxyaabahani waa warkaada iga dhaxdusay iyo muraayada bush itri koobiya markaan cabo waa iska ka dhaxarka iyo waxyaabahaasi xoogay waxa weeye waxa laga yaabaa in ay keento ضعف shakhsiya adiga qof aadan rabinba qofka hadda waxa laga yaabaa aad isu dhaxgalgelin intaad wax ku aragta ballanka bax inaad dhireed banaanka iga mar laakiin markaad is dhaxgashaan oo isku dhax marantaan waxa weeye xoogay qalbigii waxba galaya kadib way maanka taala maadaama uu yahay mawduucan ku saabsan shukaansiga mawduuc aad iyo aad u weyn haduu ilaahay idmo qaybta afraad ayaan ku soo qaadan doonaa su'aalayn ku saabsan shukaansiga nala socdo هذا بيدين شغل حق انت هذا اللي احنا نصور بحنا هذا وين لذي انت قبعلان يا من يجلس نمدي يقول وين الحر اللي ضرمين بنيه اللي بحوي ندير شمال اللي بحا يوقف ليس حبنا شنا وعلى الحب